Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaanu ku falanqeyn doonaa goosgooskii koowaad ee laga soo bandhigay qeybta 169aad ee taxanaha Gundhiga Cusmaan. Fadlan haddii janaalka cusub tahay subscribe noo saar horay dinala joogtay muuqaalka like noo saar aad iyo aad ayaad u mahadsantahay daawada intaynaan guda gelin muuqaalka ka horatana ku saliya xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. hadeerna si toos ah inuu guda galna muuqaalkeena maanta. goosgoosku wuxuu ahaa goosgoos aad iyo aad u xamaasad badan isla mar ahaantaasna waxaanu ku daawanaynaa Orhan oo ku guuleysanaya markaas inuu gacanta kusoo dhigo markaas ganacsada Marco ninka lagu magacaabo isla mar ahaantaasina ciqaabtiisa marsiinaya maadaama ninkani dadkii fidnada kiciye uu asaga number 1 ka yahay. sidaas darteedana Orhan wuxuu leeyahay halkani dawlad ayaa ka dhisan qof walba oo isku daya markaas dadka inuu kala qeybin ciqaabtiisa seefteeda ay noqon doontaa midaas ogaada waa dili doona ayuu ka wadaa oo madaxa ka jara aniga. kadibna waxaa arkaynaa Cusmaan iyo sidoo kale taba ninkii lagu magacaabay Qaraasi ayaa wada kulmayaan waxayna ku beegantaa markaas xilliga Cusmaan uu u soo socdo markaas dhanka iyo qalcadii Karadiin ninkii lagu magacaabay Lokasna asagana wuxuu yiri bacadowtinimadeedii miyaad raadsanaysaa Qaraasi oo xalqada dhamaadkeeda waa asaga dhahay magsiyaas dadteeda aniga waxba igama qaadayso yiri cadowtinimadan waxba ku fali maayo magsiyaas dadteeda meesha isaga tag. Cusmaan wuxuu u mahad celinayaa marka ninka Qaraasi lagu magacaabo wuxuuna leeyahay qalcadan aad u jeedid Karadiin adiga ayaa bahadiyad kaaga ee qaada ayuu leeyahay markaas Cusmaan ba xalqadii waxa arkaynaa markaas goosgooskiisan ku daawanayno qalcadii dhameed buu wuxuu hadiyad ahaan u siiyay ninkii Qaraasi lagu magacaabay halka Qaraasi laftirkiisa xalqadii la soo dhaafay asaga Cusmaan ay ku wada sheekaysteen markaas inuu ku yiri waxaan doonayaa markaas inaad adiga garabkayga ahaatid maalinka adiga garabkayga ahaatid Cusmaan waxay noqon doontaa maalin aad iyo aad ugu farxad badan sida wiilkaygu kalena waa ku jeclaan doonaa ayuu leeyahay labadeena adduunyada taariikh ayaan ka dhiganaa. marka ninka Qaraasi lagu magacaabo Cusmaan ayuu waji ka raasanayaa hadeerna waxaan aragnaa markaas inuu xogaa ka soo agdhawaanayo. intaa kadib waxaan arkaynaa waxyaabaha ugu cajaa'ibta badan xalqada waxaa kamid ah markaas Sofia oo dib u soo laabatay taas waxaa ka hormarinaya horta gabadhii Bigum lagu magacaabay Bala waxaa arkaynaa tababar sameynayaan labadan qofna waxooda tababar marka laga soo tago sida hoose ayayba isaga careysan yihiin dagaal kale ayaaba ka dhaxeeyaba oo Bigum iyada ayaaba tirayba waxa ugu balanaa Bala ninkaaga iyo teendhadan iyo waxaan dhaynaa kala wareegay iyo mansab walba aad leedahay. marka sidaas darteed labadoodana Cusmaan kor ka daawanayay wacdaran ayay halkaas ku soo bandhigeen iyadoona markaas gabadha Bigum lagu magacaabo xalqadii had la soo dhaafay ka soo agdhawaanaysa mudana Cusmaan maadaama ciidamadii ay diyaarisay ee tustay wax walba tan Cusmaan markaas uu ku farxay hawsha aad haysan waan ka helay ayuu ku dhahay taasoo u sii dhaweynaysa markaas inay ka agdhawaato Cusmaan ninka ama gabadhii lagu magacaabay Sofia siisankii koowaad ee taxanaha Gundhiga Cusmaan lama ilaawi karo kaliya Cusmaan waa cadowgii uu lahaa kan ugu halista badnaa ee naag ahayd isla mar ahaantaasna siisankii koowaad taxanaha Gundhiga Cusmaan waana loo xiiso qabo gabadhan ugu dambeyn way soo laabat waxaan arkaynaa markaas iyadii iyo ninka lagu magacaabo Lokas oo wada kulmayaan isagoo Sofia dhahayaan arkaynaa kadibna labadooda fagaaraha tababar ku qaadanaya wuxuuna leeyahay markaas labadeena waxaan noqon doonaa dadka ugu dhiig daadinta badnaa taariikhda awid ee xusto marka halkan ina xoogaa baws la geliyo sidee ku soo laabatay gabadha in la isweydiiyo horta siisankii koowaad ee taxanaha Gundhiga Cusmaan xalqada markaas ugu dambeysay Cusmaan markuu qalcadii kala jixisar furanay gabadhani mas'uulka ka ahayd waxaanu xasuusanaa iyadii iyo gabadhii saaxiibada ee ahaayeenba Helena lagu magacaabay ma xasuusta deere Likola la shaqeynaysa ayaan ka wada gabadhaasi iyada saaxiiba ay ahaayeen gabadhana Cusmaan waa uu dilay waa Sofia seef ayuu caloosh ka gelisaa ognahay isagoona qalcada qaybta kore ka soo tuuray balse iyada maysan dhiman iyadoo dhaawac ah ay halkaas gabadhii iyada saaxiibada ay ahaayeen ee Helen ayaa meesha ka saartay waxayna dhahdo u ogolaamaya markaas Turkida inay adiga markaas gacanta kuugu dhigaan xitaa meedkaaga xitaa u ogolaamay marka iyadoo noole meesha ka jiidatay oo ay hore u kaxaysatay horta midaasi waa suuragal oo taxanaha dib waa loogu soo celi karaa leeyahay Sofia marka horeba filimka uga maysan bix markaas geeri xitaa dadka waxay rajeynayeen markaas siisankii labaad ee taxanaha Gundhiga Cusmaan in Sofia ku soo laaban doonto iyadoona dadka badan ay ka xumaadeen markaas ninkii Koktug lagu magacaabay yarka asaga la dhashtay Koonur matalay maadaama siisanka koowaad uu dhintay Sofiana markaas siisanka dhamaadkiisa iyadana la dilay dadka waxay ka xumaadeen markaas doorkii Koonur ee taariikhiga ah ee la dilay iyo sidoo kale naagta Sofia lagu magacaabo oo laga yaabo biri kamaal in la soo cesho oo taxanaha dhimasho aysan uga bixin laakiin boosdag arinkaasi wuxuu raalgelin uga baxshay markaas Koonurkii saxda ah ee taariikhda ku xusnaa weli maana soo gelin ayuu dhahay filimka kaas weli waa ii dhiman yahay ayuu dhahay dadkana sidaas ayuu isaga aamusay isagoona Koonurkii saxda ah keenay markaas siisankii saddexaadba
seasonkii labaadna laguma arag. waaye Sofian waxaa la filayay seasonkii labaad in dib loo arko, laakiin lama arkin iyada gabadha saaxiibada ee ahaayeen Helen unbaa dib loogu arkay oo Nicola ayaaba seasonkaasi hogaaminay sidaan ognahay. marka sidaas darteed tan waxay ka saacideysaa Bosdag marka inuu dib u soo celiyo markaasi doorka Sofia wax u diidaya malaha markaasi Sofiane maysan dhiman marka hore taba hadeerna inay dib u soo laabato run ahaantii dadka aad iyo aad bay u xiiseynayaan. Bosdagna qorshii ugu fiicnaad uu ku fikira taxaniis uu ku sii socon karaba kan waay laana Sofia taxanaha waxyaabaha xiisaa u yeelay ay ku ka tahay iyada. waxaase cajiib noqon doonta Cusmaan markii uu arko Sofia isaga waxa uu dhihi doono markaasi kadibna halkaasi waxa ku heshiiyay sidaan u arkeyna Sofia iyo sidoo kale taba ninka lagu magacaabo Lucas. dhanka kale waxa arkeyna markaasi Bala oo u digeysa markaasi Holovira iyo Gonja. Almina Gonja iyada xalqada hadda la soo baxay waxa la sheeciyay in teendadeeda laga waayay ayna baxday. isla maraantaas hadeerna waxa arkeyna isla goosgooskeedii ku dhex jirto laga yaabay in la soo qabtay. waxay leedahay markaasi labadiina waxaa tihiinba dowladan garbaheeda hana isku dayina markaasi qalad kale inaad gashaan kulli waxa laga yaabaa xogaa inay isfahmi waayeen qaladna ay sameeyeen labadooda ma doonayeen qalad kale inaad gashaan ay ku leedahay waana u digaysaa Bala labadoodaba. haddaba Sofia haddii taxanaha ay dib ugu soo laabato maxaa laga filanayaa baysun guure ku baxdaba waa dish. waxay dhahaysaa markaasi Cusmaan waxa ugu balanaa markaasi jawaasiistu uu asaga qarsanay inaa mid u dilo jawaasiisu kaliya tamaahane ugaar walba Cusmaan leeyahay aniga dilayay leedahay. ninkii baysun guur ahaa ayaa qabsanaysa ka bacdeen waaba ay dilaysaa qaabkay ugu sheenaysaa la yaabo aniga baysun guur ugu dambeyn taxanaha waa uu ka bixi doonaa maxaa yeelay ninkani in badan waa soo dhaawacmay uma maleynaya markaa inuu taxanaha ku sii nagaanayo hadda season 6 baad loo bilaabay saas darteed ninkani inuu ku sii jiro waa iska fiicnaa lahayd laakiin sida u badan tahay si loo cadeeyo markaasi in doorka Sofia uu awood leeyahay waa in baysun guur uu dhintaa si markaasi Cusmaan xanuun zaid oo uu taabto. waxa arkeenaa iyadoo dilayso markaasi ninkii baysun guur ahaa xitaa iyadii iyo Lucas Jaba hawshood waa ay qabsadeen waxa arkeenaa meelaha Cusmaan oo asaga uu milkii mid kamid ah iyagoo gubayaan oo isla mar ahaantaasna dagaalka dhaca halkaasna Calaadiin iyo laftkooda ay joogan meeshaasna sugood inay tahay uma maleynay laakiin qalcada Karadin macquul waa inay tahay iyo sidoo kale taba Yenishiir hadda meesha suuqa ku eegaya labadaas mid noqon doonta markaasi. Cusmaan ugu dambeyn waxa uu maanay markaasi ninkii lagu magacaabay baysun guur oo faraskiisa saaray kulli xilligaas inuu meedahay oo badanta dhibaatana waa la soo gaarsiiyay. Cusmaanna waa uu qeylinaya waxyaabaha uu leeyahay waxa kamid ah ilaah baan ku dhaartay baysun guur oo qofka sidaan ku yeelay anigu sii deemaayo ballan waxa uu ahaa maalinkii qofkaasi uu dhashay inaan soo xasuusiyo malmalkii hooyadiis u marisay ayaan soo xasuusinayo ka wada ballan waa dili doonaa ayuu leeyahay dadka waxaan sidaan adiga kugu sameeyay kulli goosgooskana ma hayso ku dhamaanaya. Cusmaan saas waxa naasay mar hadaa aragtana markaasi qofkaasi waa uu dhintay laana hadda korb waxa xasuusan Abaayindir markii dilay Cusmaan inuu sidaas waxa naaqis la maraantaasna ciidamadiisa amar ku sii inay dhamaantooda isdiyaariyaan dagaalna markaasi la qaadi doono. baysun guurna hadda waxay u agtaa markaasi laabta Cusmaan markuu ku jiro inay nafta ka sii baxday sidaasna Cusmaan uu markaasi uu balan qaaday baysun guur inuusan sii diin doonin dadka asaga sidaan yeelay oo dilay inuu nafta iyagana ku silcin doono. marka goosgooska intaas asagana ku soo koobayna aad iyo aad u maasantihiin halka hoose commentiga ayaad nagula wadaagi kartaan waxyaabaha Sofia ay dib ula soo laabatay waxa fikirkiina aad ka qabtaan aad iyo aad u maasantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.